بسم الله الرحمن الرحيم qaybtan waxaan ku eegaynaa Iran iyo Israel maxay ama Israel maxay uga dhigan tahay in wada hadal hadii la galo oo heshiis uu dabcan yimaado heshiis dabcan wali ma iman laakiin haduu yimaado maxay uga dhigan tahay horta Israel si guud xilliga hadda la joogo waxa moodaa saameynteedu in hoos u dhacayso hadda tasbiixda ugu dambeysay waxa ku dhiiranayeen dawladaha ilaa 17 dawladood oo kamid ah Yurub inay wax weeye dib u diraaseeyaan wada hadal mataqaanaa heshiisyadii dhaqaale ay xataa la lahaayeen qaarkood waxay u yeerteen safaaradii u yeerteen qaarkood safiirkii Iran Israel u joogay bay mataqaanaa u yeerteen marka halka Israel waxa ka soo gaaray dhabarjab weyn ka soo gaaray sidoo kale Israel waxa la ogaaday ama lagu tijaabiyay hadda dagaalada hadda socdaata awoodeeda waxa weeye military inta la egtahay oo hadda xilliyada ugu dambeysay oo kale waxay iska difaacin laayihiin sawaariikhda ay soo tuurisay xuutiyiin soo tuurayay marka halka dawladuhu isha ku hayaan teknolojiyada military ee Israel leedahay intee bay waxa weey noqon kartaa mid taabagala oo wax weey wax ka celisa inkastoo Israel tahay dawlad xoog badan oo lagu tiriyo ciidanka afraad oo adduunka ugu xoog badan lagu tiriyo mandaqada bariga dhexe dawladda ugu xoog waaweyn hub nuclear haysata waxyaabo badan ayaa waxa weey la tixgelinayaa sidoo kale dhaqaale ahaan mujtamaca yahuud oo xataa raqabeedka jooga iyo kuwan mataqaana bariga jooga labaduba ay dawlad dhaqaale badan tahay oo dadkeedu dhaqaale badan yihiin laakiin Iran hadii hadda heshiis la galo maxay iyadoo noqon kartaa Iran hadii heshiis la galo dhabarjabada kamid ah ay noqon kartaa oo iyada soo gaara sababtoo ah hadda dhabarjabka waxaan sheegnay waxa weeye ku salaysan Yurub ku salaysan waxaan sheegnay sidoo kale dhabarjabka ka soo gaaray ayada aragtiyo ka dhan ah oo Mareykanka dhexdiisa sameey waxa weeye ka abuurmaya oo ayada loobiyaad ka soo horjeeday sameeyay marka laga tago ki muslimka ah oo loobiga muslimka ku jiray oo aan way ka xoog badnay dabcan laakiin uu sameysmayay ama wax jira waxa sidoo kale hadda laakiin Mareykanka waxa abuurmaysa qoliyo kale oo Catholic ku dhex jira oo dhaxaya Israel Mareykanka dhibaato ku tahay ay abuurmaya Mareykanka hadii marka uu heshiiska galo asagoo aan tixgelin nimanka la yiraahdo Israel asagoo aan tixgelin haduu heshiis galo dhabarjab weyn ku tahay laano Israel waxay ka qeylinaysaa maalin weyd xuutiyiinta oo Mareykanka heshiis la galay ama Hamas oo heshiis wada hadal ninka Adam Mueller la yiraahdo iyo Witkoff kan iyo dadkan loo soo dirsaday bariga dhexe iyo wada hadalada bariga dhexe loo soo dirsaday inay wada hadal la galeen kafool ay la galeen Hamas la galeen ayagoo askarigii Iran la dhihin jiray loo sii daayay Mareykanka loo sii daayay Mareykanka uu damaanad qaaday in musaacadaadka ama wax weeye taakulada adduunku uu keenayo isqaas loo sii daayay taasi ka qeylinayeen laakiin hadii Iran oo ay taagnaayeen in Iran la duqeeyo oo ay mar isku dhaceen hadda xilliga waxa jiray markii dagaalka duufaanka Aqsa intuu socday ama wax weeye intuu socday mar ay Iran iyo Mareykan Iran iyo wax weeye Israel afka istareen inkastoo la yiraahdo waa arin bool xafta ayo wax weeye waxay ahayd bahalkii ahayd iyo isu goodin guud bahayd laakiin waxay sheegaysay in ay dawladahaasi markasta afka istar karaan hadii marka Mareykanku sameeyo in uu dawladdaas heshiis la galo asagoo aan tixgelin Israel waxay doonayso taas waxay ka dhigan tahay Israel iyo Mareykanku inay kala xargoodo si kala furmaya ay ka dhigan tahay waa number koowaad ee akhriyaan dadku sidoo kale dhabarjab ay ku tahay Israel ku tahay dawladaha kale oo ragabeedka ah oo Yurub oo Mareykanka ka daba qaatay inta badan waxa ay ruuxadoodu ma taqaanaa ku dhiiranayaan inay wada hadallo ayo heshiisyo iyo inay la galaan Iran la galaan ayagoo aan tixgelin Israel waxay doonayso oo ayada marka bariga dhexe markii la joogo ragabeedku asal ahaan waxay tixgeliyaan Israel bay tixgeliyaan say wax aragto bay tixgeliyaan say wax aragto hatta dawladaha laga takhalusayo ama waxyaabo la tuurayo oo kaleeto Israel bal tixgeliya marka ugu badan marka taas waxay ku noqonaysaa dhabarjab ay ku noqonaysaa midda kale oo la halmaala oo China iyo Ruushka China iyo Ruushka waxa weeye maxay ku noqon kartaa hadii heshiis la galaan Mareykanka طبعا hadii laba wadan oo heshiis wada ahaa ama waxa weeye gaashaan buris la ahaa hadii wadan kale la galo heshiis waxa weeye wadan kale dhibaato dareema misalna kale to su'aalo waxaan soo qaadan karaa Turkiga markay afar boqol markay ka soo gateen Ruushka ka soo gateen oo ay keeneen wadankooda
maraykanku wuxuu ku arkay inay tahay waxa weeye caqabad weyn inay ku tahay maraykanka ku tahay iyo teknolojiyada ku tahay saas oo kaleeto ruushka iyo China way dareemayaan inay caqabad ku noqonayso haddii Iran ay heshiis la gasho bahalkii laakiin sidoo kaleeto Iran markaas waxay fiirinaysaa maslaxadeeda fiirinaysaa laano Israa'iil nimanka Iran cunaqabataynta reer galbeedku iyo shirkadaha reer galbeedku ay saareen iyo siyaasadda reer galbeedku ay saarday waxa weeye dhaqaalaha mataqaanaa nimanka Iran waxa dhulka la gashay hadda waxa la yiraahdaa qoraallo laga qoray ma arkayo niman Iraniyiin mufakiriin ka qoreen waxay yiraahdaan dadka ugu badan ee lacagta haysta ama haysta asxaabul mihan ama dadkan xirfadda leh iyo dadka dhakhaatiirta iyo injineerada iyo waxa la halmaala sanadii ugu dambeysay way baxayeen lacagta ay leeyihiin iyo xirfadoodaba waxay kala baxayeen dalka kala baxayeen dawladdu ruuxadeedu ma ay horseegan karin ayadoo dhaqaale xumada ka sheeganaysa ay dadka way u fududeynaysaa in mataqaana ay baxaan oo waxba badan lagu xirin marka dhaqaale xumo weyn ayaa soo wajahday marka maslaxadeeda marka ka fiiriso Iran waa tan soo bandhigtay oo Mareykanku soo bandhigtay iyada marka hore waxay soo bandhigtay in uraniumka ama bacriminta inay joojinayso ama yareynayso haddii Mareykanku cuqubaadka reer galbeedka dhan uu ka qaado marka Iran markaas waxay fiirinaysaa maslaxadeeda laakiin nimanka Ruushka iyo China hadda waxa moodaa in ay ruuxadooda maslaxadooda ilaalinayso laano hadda mufaawadaadkan waxa ku jira inaysan marna ayada garabkooda ka bixin doonin xataa iyagu waxay u muujisay inay waxaan leeyahay wada hadalka mufaawadaad baan ereyga mufaawadaad saaray wada hadalka inaysan ay ka noqon doonaan damiin ka noqon doonaan iyagu oo ay soo dhexgelin doonaan ayagana waxay u muujisay sidoo kale Abaas Caraaqdi iyo rag la halmaala madaxweynaha hadeer mataqaana siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha waa looga fiican yahay oo waxa uga fiican ninka la yiraahdo ninka murshid ala ninka la yiraahdo ama hagaha sare waxa weeye Iran ay leedahay ninkaas Ali Khamenei baa uga sareeya siyaasadda arrimaha dibadda sagan saameynta ugu badan kale ku leh waxay u muujiyeen inay markastaba ay garabkooda ahaan doonaan oo aysan ka bixin doonin wada hadallada iyo gaashaan bursiga ay ku jiraan marka si guud haddii wada hadalladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro Iran number 1 waxay u tahay faa'iido u tahay oo ayadu waxay soo dhexgelaysaa manطقada soo dhexgelaysaa dadkana way isla heshiinayaan xataa Mareykanku waxa laga yaabaa inuu wada u kala dab qaado ayaga ay carabaha kaleeto u kala dab qaado laakiin waxay dhabar jab ku noqon karaa saan aaminsanahay nimanka la yiraahdo Israa'iil bay ku noqon karaa somehow ama si unaayana waxay taxaddi ku abuuri karaa ama dib ku abuuri karaa nimanka la yiraahdo China iyo Ruushka ayagoo oo waxa way dareemaya dhibaatada ka soo gaari karta hadii xubintaas oo muhiim u ahayd haday reer galbeedku kala raacdo sidii ay ugu degdegtay Iran ugu degdegtay waxa loo yaqaan wada markii la ganacsiga la ganacsanay reer galbeedka ay ugu ganacsan waa laga yaabaa hadii damaanad fiican la siiyo in sidoo kale khaladkii oo kala gashan waa suurtagal inuu Mareykanku xataa haduu heshiis galo inuu ka noqdo ama ku wada ka noqdaana waa suurtagal inuu gadin waayo oo مثلا Israa'iil Iran oo kale waxay bahalkaysanaysaa in baarlamaankooda la geeyo Mareykanka laga ansixiyo hadduu gadin waayo ruuxadeeda dhibaato ku noqon kara Iran ku noqon kara markastaba iyadu waxay hubto ayay waxay ku wadin karaa cilaaqaadka ay la leedahay qolyaha kale aad baan u mahadsantahay